عثمان علي فارح ayaa dhinacayga midigta fadhiya oo aan si fiican u taqaanaan isla mar ahaantaana madaxa guud ee markiska Ar-Rahma ee magaalada Birmingham. bidixdiisa waxaa fadhiya daaci Soomaaliyeed oo si fiican u taqaanaan Axmed Cali Jaamac Axmed Farax loo yaqaano oo asagu degan magaalada Leicester isla mar ahaantaana dadka active-ka oo dacwada ku jira. labadan sheekh aad baan mar kale ugu mahadcelinaynaa waxayna isku jecelahay insha Allah taala ka munaaqashoodaan waxay diintu ka qabto. Sheekh Cusmaan wuxuu aaminsan yahay mawlidku inuusan ahayn mid Ilaahay iyo nabigiisa iyo adilla cad loo hayo diinta ku sugan. meesha Sheekh Axmed uu rumaysan yahay mawlidku mid diinta kamid ah inuu yahay shariicaduna ay dhigayso. rabbigay muxuu yiri subhanahu wa ta'ala muxuu sayiri kan mid lagu daydo mudane sallallahu alayhi wasallam ilaahay asagu quraankiisa uu ku yiri laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal aakhir wa dhakara allaha kathira. haddaba adiladaas aanu fiirinayna waxaan jecelahay barnaamijkan intuu socdo inaad idinkuna nagala qayb qaadataan una noqdo mid Ilaahay aan ugu dhawaano aan dambina naga soo raacinin. aflagaadaduna absolutely mamnuuc way and I will not tolerate. Sheekh Cusmaan labadiinuba ay Sheekh Axmed ku soo dhawaada Universal TV. barakallahu fiik. aad baa idinku mahad celinayaa safarkiina dheer ku timaadeen idinkoo doonaya ummadana oo faa'iideysan Ilaahay inuu dhawaataan labadiinuba. jazakumullahu khayr wa ahsanallahu ilaykum. Cusmaan waxaan rabaa inaan ku siiyo 5 daqiiqo oo marka hore bal ku qeexin mawlidka meesha salka ku hayo laakiin waxaad igu tiri daqiiqad baan rabaa ummadda aan kula hadlo ka horeysa kelimo dayib aan ilaahay inta ka hor tafadal. barakallahu fiik. adiga Cabdul Xafiid iyo maamulka Universal waan u mahad celinaynaa maadaama ay barnaamijkan iyo barnaamijyo lamidaba ay ugu tala galeen inay dadka ugu iftiimiyaan diintooda iyo wixii laga yaabo inay ka dahsoomaan. intaas kadib waxaan rabaa walaalahana daawanayo inta aysan hawshaanu bilaaban oo aan la guda gelin hawshii aan u nimid mawlidka ma la ogol yahay mise lama ogola in xaflad loo dhigo. waxaan rabaa in dhowr arrimood ay fahmaan oo waxa aan sheegayno si ay hadhowbito ugu fahmaan qodobadaas. qodobka koowaad wuxuu yahay maadaama anigu aan hadhowbito qeexi doono mawlidka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi in xaflad loo dhigo oo ixtifaalaadkan iyo dabaaldegan iyo reynreyntan iyo feestooyinka loo dhigayo inaysan sharciga la kulahayn maadaama aan caddaynayo. waxaan rabaa in dadku ogaadaan taas macnaheedu maahan dadka mawlidka dhiga inay yihiin dad aan colaad u hayno, dad aan iska soo horjeedno, dadaan inaan burburino rabno, dadaan inaan baabi'ino rabno. maahan ujeedadu saas. waa dad walaalaheena oo u baahan maadaama aan aaminsannahay arrintaas ay samaynayeen inaysan sax ahayn si wanaagsan oo qurxoon inaan uga dhaadhicino oon ugu sheegno in aysan arrintaasu diin ahaan sax ahayn. arrinta labaad waxay tahay fadhigan aan aniga iyo walaalka igala qaybgala aan idiin soo gudbi doono waxa aan hayno macnihiisu maahan in nina ray doono nina laga ray doono. ujeedadu waxay tahay waxa Ilaahay rabo iyo waxa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi lagu raacayo mujtamacana anfacaya diintooda iyo caqligooda inaan dadka usoo gudbino ayaa muhiima. haddii qofkan uu saxda sheego oo Ilaahay dadka garansiiyo oo ay sidaas ku qancaan labadeena ninkeena ma rayn ee waxa raayay xaqi sida xaq ahayd ayaan garnay. sidaas awgeed marka saan oo kale la rabo in diin laga hadlo culimadu waxay dhaxleen oo ay matalaan rasuulkii salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo ambiyada ka horreeyay alculamaa warathatul anbiyaa. ambiyadana waxaa lagu yiqiin inaysan marnaba xataa hadday dadku iyagu dhibaan oo ay caayaan inay la mid yihiin geedka timirta oo kale oo dadku inta dhagax ku tuuraan isagoo timirta usoo rida. waxaan ugu dambeyn leeyahay waxaa la raba in mar walba maanka lagu hayo oo maskaxda la geliyaa waxay tahay in inta adduunyada waxaan lacag haynay aan gelino mawlid iyo arrimo kale diin ahaan laga yaabo inaysan sax ahayn si aysan u dhicin inta waqti badan gelino oo dhaqaale gelino oo juhdi badan naga baxo si aysan u dhicin aakhiro marka la tago wabada lahum min allaahi ma lam yakunu yaxtasibuun. qofkii markuu aakhiro tago asagoo islahay wax badana ku jira haddii meeshii markuu u taga la yiraa waxba akoonkaaga kuma jiraan uu muraar dilaaca uuna qaracma. marka waxaa fiican hadda intaan fursad haysano waxa aan samaynaynaa inay noqdaan wax aan hubno insha allahu tacaala ama culimada islaamku ay isla ogol yihiin inay yihiin wax Ilaahay loogu dhawaado si aysan aakhiro u dhicin in qofku uu asagoo gacmo maran soo istaago waqti aysan jirin wax kale oo lagu badbaadayo camal fiican maahan. intaas haddaan ka baxo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi
ونبيغاني وحبيبكاني ورسولك أنجعلين وحمدين يهي قفك مسلمك وحكستا والرسول أي أمديسا كل دقنتو أي مدين يهي إن لقول دقمو نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وحوءها قفكي داد كان كبد بادية نارتي جهلك كبد بادية حمانتي كبد بادية دلكي يا قبيالتي يا إسلامتي كبد بادية مقدك أسوي بحية علمك نبي محمد وحوءها رسولك الله صدري إنه النقطة أنت راعي أنت راعمبا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما حتى دمت أجمجر المسلمين تكليه عالم كردن أيام مصلحة أجرتي رسولك إن صدر صلوات الله وسلامه عليه مولد كلا إجي ما يمرك معنى هذا ماهن ولجنا مدعن وحقلك جلاينا ماهن قفك يرى مولد كحفلة الله إجي مايو إنه النبي أو سنجعلين نبي إلا جعل هذا ووحيابها قفك ومسلمك وكل نقطة أي كمتاي أيضا درجوين له لكن درجة أجوه سيدا رسولك هدادا جعلين رسولك هدادا ربين رسولك هدوسا كجوينين مسلم بمعيد marka yaan laba la isku qaldan hadaan mawlid ka dhigin inaad rasuulka nacabtahay qofkii yiraaho hada waa qof kasta oo wax garanaya oo fahmi karo waxaan ka hadlaynaa waxaanu ma yihiin wax rasuulka loo soo dhiibay masama waxaan ku bilaabaa si dadku u fahmaan waxaanu sida isugu xigeen si aqli ah nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi mawlidka waxa la dhigaa bisha rabiul awwal nabigu goormo dhashay horta sanad ku dhashay si dadku u fahmaan nabigu goor uu dhashay haba yaraatee ciid hubta ma jirto qof taqaan boqolkiiba boqol goortii nabigu dhashay sanadkii ma jirto laakiin qiyaas iyo culimmadu dadaal la dadaalay ayay siyaabo kala duwan sheegeen intooda badan waxay yiraahdeen waxaa la dhalay sanadkii xabashadii nasaarada ahaa kristanka ahaa markay kusoo duuleen kacbada oo inay dudumiyaan rabeen sanadkaas oo ay ka hadlaydo suuradan suuratul fiil oo maaragtay ay yimaadeen raggii watay maroodiyaasha sanadkii dhacdadaas oo dhacday waqti kamid ah oo dhashay ay culimada intooda badan ay yiraahdeen inkastoo jiraan culimo badan oo ayagu yiraahdeen sidaas maahan nabiga intaan la dhalin ayay xataa dhacdadaas oo caamul fiilka waqtiga loo yaqaan sanadkii maroodiyaashii duulaanka ahaa ay kacbada ku soo qaadeen sanadkaas 40 sano ka hor intuu nabigu dhalan ayay ahayd qaaraba leh laakiin intooda badan waxay leeyihiin sanadkaas caamul fiilka la yiraa ayuu nabigu dhashay sanadkii fahmni bisha uu dhashay sidoo kale ayagana laba yaqaan laakiin culimada intooda badan waxay yiraahdeen bisha rabiul awwal ayuu dhashay laakiin wax hubaala maahan sida hadhuuta aan dib ka sheegi doono maalintoo kasii dhashay bishaas sidoo kale problem badan ayaa ka taagan horta maalin ahaan taariikhda intii ay ahayd lama yaqaan laakiin maalin ahaan mid ay ahayd bisha la hubaa nabigu wuxuu dhashay sallallahu alayhi wasallam maalin isniina taas waa hubaal xadiis abi qataada cinda muslim وغيره أي كتال هذا بتنشيك دونا حديثك نبي قال له ويديي sababta uu u soomo maalinta isniinta markaasuu ku wuxuu ku jawaabay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dalika yowmun wulidtu fiihi wa unzila calaya fiihi wa bucithtu fiihi saddex arrimood isku daray waa maalin aan dhashay waa maalin diinta nebinimadaba la ii doortay oo aan nebi noqday waa maalintii koowaad oo qur-aanka laygu soo dejiyey maalin ahaan marka waa la yaqaan inay isniin tahay laakiin taariikhdu maalintay eed ma 10 ma 5 ma 6 culimadu mi qolba meel ayay la aadeen in badan qayb badan waxay leeyihiin nabigu wuxuu dhashay 8 maalintii 8aad qal waxay leeyihiin 10kii qol waxay leeyihiin 12kii qolba meel laakiin sida caanka oo culimadu intooda badan leeyihiin 12kaasi u badan yihiin marka hadan marka raacno culimadu meesha u badan yihiin 12kii bisha rabiul awwal sanadkii caamul fil laakiin hal sanad ah hal abtiris oo qaabka lagu cadeeyo ah waxaanu goortay dhaceen iyo sida u dhaceen hal shay oo sugan oo la isku waafaqsan yahay marka cilmiga xadiidka iyo taariikhda la isticmaalo lama hayo waqtigii rasmiga ah maalintaas inay 10 ahayd inay 5 ahayd sababtoo waxaadna ku cadeynaa inaan cid hubtaa jirin intaas oo qawl intaas oo hab oo kala duwan ay culimadu qolaba meel ku dhufatay
ma gelayo culimadii falaga iyo ragga yaqaan taariikhaha iyo waxaas waqtiga ay iyagu sheegeen laakiin iyagu waxay leeyihiin in badan 571 taariikhda miilaadiga markay ahayd ay meelahaasay ku beegneed ay leeyihiin waqtigii maalintii nabigu uu dhashay maxaa keenay marka in la oqon waayo maalintii taariikhdu intay ahayd bishii ay ahayd sanadkii ay ahayd maxaa keenay waxaa keenay shay qof kasta oo diinta fahamsan iyo taariikhda carabta uu hore ka garan karo nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay inaa ummatun ummiya waxaan nahay ummad aan waxna qorin waxna aqrin saas awgeed carabtu ma aysan oqoon sanad iyo bil iyo waxaas taarikh ma xisaabi jirin waxaa wax lagu xisaabi jiray sanadkii maroodiga iyo bishii u dhacay dagaalkii gaajada iyo abaartii baastaaley bis saasa u calaamad ahayd laakiin ma aysan oqoon taariikh qoran oo qofku date of birth uu leeyahay xukunkiisu marka muxuu yahay yaasa bilaabay labadaas bisaan ka jawaaba waxaan xukunka usoo noqon ka 5 daqiiqo ka dhacday marka usoo noqon xukunka Sheekh Ahmed tafadal 5 daqiiqo haysta barakallahu fiik bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي شيخي شافعي سما الحمد لله الذي لي أشعري زما الحمد لله الذي لي مشايخ كرما الحمد لله ثم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا دتك مسلمين ونقدا ونيا أدونك دع الذي ساه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي بأمهد علينا يا ثانيا ثم تيفيغا عالميغا يونيفرسال تيفي وأمهد علينا يشوغا أما برنامج كان قاليغا داديه معنا شخصيغا داديهنا يا ولا كان عبد حفيظة waxaan kaloo u mahad celinayaa walaalkayga masalada igala hadlaya ma sha Allah ta'ala Sheekh Usmaan asagana waa u mahad celinaya barakallahu fiikum jamiican haddaan qodobka aan u soo gudbo waqtiga la isiiyay anoo aad u ilaalinaya bisha nabigu uu dhashay salawaatu rabbi waxaan ka hadlaynaa waa mawlid way mawlid dadku erayga way isku khaldaan oo waxay dhahaan mawlid wax yaad horta ma jiraan waa mawlid way waa miim iyo waaw iyo laam iyo deel way wuxuuna cadaynayaa makaan dhalasho ah ama dhalashadii buu cadaynayaa marka loo fiiriyo sarta uu ka dhismaayo waa masdar miimi ah iyo daraf makaan oo miimi ah marka loo fiiriyo min jaanibi sarfi ama min jaanibi luqati alcarabiya marka nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi bisha uu dhashay waa la soo dhaweeyaa oo waxaa lagu soo dhaweeyaa xaflado aad u wanaagsan iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam tacdiimkiisa lagu soo dhaweeyaa anigoo walaalkay ma sha Allah ta'ala maadaama uu iga horeeyay kalaamka pointskiisii carabaabaya waxaan leenahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh wuxuu dhashay 12 min shahri rabiici alawal min caami alfiil alladii saddahu allahu can alxarami wa xamaa nabigu wuxuu dhashay bisha markay 12 ahayd bishuna waxay ahayd rabiicu alawal maalinkuna wuxuu ahaa yowm alithnain mid waa qirayna oo ma diideyno haddaan nahay dadka mawliidka aaminsan macnaha dhigistiisa culimada gobolkood inay isku khilaafeen macnaha dee maalinka waxaan ka ahayn ma diideyna taas maxaa yeele masalada xaqeeda in la siiyaa la rabaa laakiin mas'alo walba marka laga hadlayo waxaa la fiiriyaa jumhuurta culimadu meeshay isku raaceen walaalkeena asagoo laftigiisu si fiican buu maasha Allah u qiray khayr Allah siiye oo ah nabigu inuu jumhuurta culimadu inay u bateen nabigu inuu dhashay bishii 12 markay ahayd rabiicul awal sanadkuna macnaha waxaa la oran jiray caamul fiil maxaa keenay marka sanadka in lagu magacaabo oo lagu sunto caamul fiil waxay la mid tahay taas Soomaalida waad aragteen Soomaalideena dhaqan baan leenahay waagii hore qofka taariikh ma la tirsada waxa la leeyahay deertii heblaaye ahayd buu qofkaas u dhashay baa la leeyahay macnaha ma jirin hijriye iyo taariikh la xisaabsada ma jirin sidaasaa loogu magacaabay caamul fiil waa lagu suntay konton macnaha beri ka hor 40 beri maahan konton beri macnaha ka hor buuna nabigu salawaatu rabbi oo kacbada uu soo weeraray maroodigaas buu nabigu dhashay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh marka mawliidka saan u qeexayba waxa macnaha laga hadlayo oo laga sheekeynayo waa dhowr shay wey wixii faahfaahina gadaal baan u geli doonaa waa midda koobaad siiradii nabiga dadka la baraya oo laga sheekeynaya salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh
waa midda labaade nebi moxamed baa la ammaanayaa sala allahu calayhi wasalam. waa midda saddexaade haddee macnaha dee ijtimaac iyo kulan khayri ah meeshaa ka dhacaya. waa midda afraade sadaqa macnaha la bixinaya. saddexda dhowrkaa shay marka la fiiriyo shay walba haddii adilo looga raadiyo shareecada islaamka mid walba adiladiisu waa waafi oo wax aada u tiro badan oo caawa makaankan aanan kusoo koobi karin waayo. marka waxaan leenahay nebiga waa la yaqaanaa bishuu dhashay, waa la yaqaanaa taariikhdii macnaha uu dhashay 12 bay ahayd, waa la yaqaanaa maalinkuu dhashay waa yowm lithnain salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. intaba kutubta siyarkay ku qoran tahay. waqtiga macnaha aan haysto ma lagu faahfaahin kara laakiin dib baan kasii faahfaahin doonaa. intaba kutubta siyarka iyo adilada kusoo aroortay bay intaba ku caddahay. caawa si fiican bay shucuubta soomaaliyeed ay nooga bogan doonaan biidn illahi ilbaari insha allah. midda kale walaalkeen maasha allahu tacaala wuxuu yidhi xiwaarku ama dhibeydku inuu noqdaa wanaagsan, usluub wanaagsan. waa sax taas aad baan maasha allahu tacaala u ayiidayaa. shayga in laga dhigo ilaahay dartiisa, marka la wada hadlayana mas'alada xaqeeda la siiyo. walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa. mar walba qofku inuu cadaalada ka shaqeeyaa wanaagsan, shacabkana loo tabiyo wax wanaagsan oo khayra si ay ummaddu u faa'iidaystaan. waxaan rajaynayaa tv-gan iyo daadihiya barnaamijkanba cabdulxafiid inaan maasha allahu tacaala barnaamijyada noocaana ay sii socdaan si shucuubta soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan, anaguna aan uga faa'iidaysano biidn illahi ilbaari insha allahu tacaala. midda odhanaysa nebigu sanadkuu dhashay lama yaqaan, bishuu dhashayna lama yaqaan, taas waa arrin anigu aan khilaafsanahay haddaan ahay dadka mawliidka aaminsan in la dhigo. waxaan leenahay nebiga bishuu dhashay waa la yaqaanaa, daydkii iyo taariikhduu dhashayna waa la yaqaanaa, maalinkuu dhashayna waa la yaqaanaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. khilaafa ku jira culimada. waa aragteen masaa-isha islaamka marka laga hadlayo culimadu waa isku khilaafaan, laakiin jumhuur lculamaa waxay isku waafaqsan yihiin culimada madaxyaweyntooda aad caawa arki doontaan nebigu inuu dhashay 12 min shahri rabiici lwal min caami lfiili aladii sadahu allahu can ilxarami waxamaa. nebiga marka xafladda saasaan ugu dhignaa haddaan nahay dadka mawliidka aaminsan. jacaylka nebigaa ummadda lagu beeraa, nebigaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, sadaqaa la bixiyaa, wax walbo wanaagsan baa ummadda maasha allahu tacaala loo sheegaa. waxyaalahaas adiladooda oo cadcadna caawa waad ku bogan doontaan biidn illahi ilbaari insha allahu tacaala. aad baa umahadsantihiin wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. baarak allahu fiik. labadiinaba waa idiin mahad celinaya sida hufan a u doodeen. waxaan jeclahay markaan sheekh cusmaan aada dib kugu soo noqdo oo ku siiyo 2 daqiiqo iyo bar. sheekh axmed waa dhageysatay, waxaana ku yaala weli arrimo kaloo doonaysa inaad hoos ka xariiqdid. tafadal. sheekh axmed waxaan aadan runtii u bogaadinaa sababto wixii aan sheegay ma uusan khilaafin. waxaan sheegay in culimmada intooda badan ay si qabaan laakiin aysan ahayn wax la hubo, laakiin ay tahay qiyaas iyo raadin iyo taariikhdii la goobgoobay. intaas waxaa dheer waxaa wax lala yaaban noqday. jumhuurulculamaa soo iyagu ma dhihin 12kii tusaalaan qayb badan soo ma dhihin 12kii bishii rabiicul awal nabigu dhashay. inta sida caanka ah oo culimmadu isla yaqaanin haddana waxay leeyihiin oo hadda kutubta xadiidka iyo meel walba taariikhda ku taal 12kii bishii 3aad oo rabiicul awal ah taariikhda hijriga markay ahayd sanadkii 11aad ayaa nabigu dhintay. waa 12ka isla bishaas ogow. marka maxaa yaal maalinta loo dabaal dego dhalashada nebiga nasiib xumo waa isla maalinta nebigu u dhintay sida ay qabaan in badan oo culimmada kamid a oo meel walba ku taal oo qof walba oo na daawana uu heli karo. waana sida caanka culimmadu isla yaqaaniin. goormay bilaabatay in nebiga dhalashadiisii xaflad loo dhigo? nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi xaflad isagu intuu joogay looma dhigin maalintuu dhashay, looma dhigin xaflad maalintii nebi laga dhigay, xaflad looma dhigin maalintii qur-aanka lagu soo dejiyey, xaflad looma dhigin maalintii beder oo sharta iyo khayrka iyo muslim iyo gala kala miirmeen oo maalin calaamada weyn islaamka yowm alfurqaan. wax xaflada oo loo dhiga ma jiro. wixii ka dambeeyey waa sidaas oo kale. dhacdooyinka dhacday waxay ahayn dhacdooyin farih ka batay. wax xaflad ah sanad haba yaraatee wax caddayn xataa u eg ma aysan dhicin. waqtigii asxaabta hal qof oo asxaabtii ka mid ah oo nebiga u dhigay xaflad loogu dabaaldegay dhalashadii nebiga ma ay jirto. hal qof oo asxaabtii iyo taabiciintii
iyo taabiciintii iyo quruntii nabigu uu yiri khayru nnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum xadiidka saxiixa oo in badan dadku ka dharagsan yihiin dadka qurunta waxaa ugu khayr badan qarniga anigu aan joogo waxaa ku xiga kan kusii xiga waxaa kusii xiga xagga khayr badnaanta kan kusii xiga hal qof oo ka mid ah oo nebiga u dhigay xaflad maalintii u dhashay iyo maalintuu dhintay iyo maalintii nebiga laga dhiga midna ma jirto yaa keenay marka in xafladdan la dhigo xafladdan waxaa keenay sida uu sheegayo maaha ninka aniga sheegayo sida uu sheegayo alxaafid alimaam ibnu kathiir fi lbidaaya walnihaaya kitaabkiisa la yidhaha المقريزي في الخطط كتاب كلي رسول كل شيء جاي نك اللي يراق القشندي صبح الأعشى سو كل شيء جاي الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر أخرى سيد كل شيء جاي كتاب كيس اللي أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام إيه غير كنت هاد بدن علماء الإسلام بدن وحيورا عبينا ين أيضا أدونك لأقون وإحنا حفلات ودي على شديسي يا قرنجي أفراد نمن اللي يراق عبيدين oo ahaa sida asalka ah waxay culimadu yiraahdeen waxay iigu sheegtaan shiico baatiniye ah macnaa muuqaalka kore shiici iska dhigaan laakiin sida hoose muslim sax maahan dad muslimiina maahan oo ka yimid galbeedka afrika maqrib ka yimid ayaa xukumi jireen masar marka maadaama dadka ay rabeen caamada inay soo jiitaan ayay waxay u sameeyeen xaflada fara badan oo dadka ku mashquulinayaan dadkana ay ku qancinayaan dad nabigii jecel asxaabtii jecel markaas waxay soo alifeen xaflada loogu talagala Faatima gabadha nabiga radiyallahu anha waxay soo jii Xasan iyo Xuseen iyo Ali ibn Abi Talib iyo xaflada loo dhigay sameeyeen mawlidka nabiga kamid aha ciid Nowruz ciid liiraha kamid ah oo hadda nimankan Iran iyo laga yiqin ciido fara badan oo saas ay sameeyeen oo dadku ay ciid ka bax ciid gal ahaayeen niman muslimiin ma ahayn qarnigii afraad ee nasiib xumo hal ilbarqsiyan ku darasi warku iga istaago nasiib xumo qarnigii afraad ayadoon qof muslina oo maalintaas ka hor nabiga xaflad u dhigay dhalashadiisa aysan dhicin bidcadaas markay soo korortay waxay la mid tahay nasiib xumo qarnigii afraad ayaa nasaaradana waxaa ku soo biiray bidcadaas oo kale oo ahaa ciise maalinta u dhashay in loo dhigo xaflad oo aan ku caday karno encyclopedia Britannia England midda Mareykanka meel walba laga fiiri karo qofkii raba inuu si degdeg ku ogaadana uu ka ogaa karo book yar oo uu qoray nin haystay World Wide Church of God nin haystay madaxda ku jiray book uu alifay oo la yiraahdo Plain Truth about Christmas wuxuu ku cadeynaa qarnigii afraad iyadoo diinta Kirishtaanka aysan Bible-ka ku jirin oo kaniisadda Catholic aqoon inay qarnigii afraad iyadoo soo biirtay in Ciise xaflad loo dhigo wax badan aan sheegi lahay laakiin nasiib xumo waxaad moodaa waa isla sidoo kale oo ka baxay waxaan rabaa insha Allah taala laba daqiiqo barba ku siiyo marka waxaan rabaa Axmed intii oo kala siiyo wali waxa ogolahay saddex la siiyo may inta qaato kala siiyo halkaan ka arkaya laakiin waxaan sameeynaa insha Allah taala qadar yar xayisiinaan gelina dan Sheekh Axmed siinaya tafadal hormuudka xawaaladaha idilahaantood adduunka hoda iyo nasiib iyo haybad iyo aaminimo lagu kala horeeyaa waxa ay ku haysaa adeeg hufan iyo weliba degdegsiinyo adiga oo ku dhisan kara kagana qaadan kara lacagtaada lacagtii weli baan helin iska daa xawaaladaha kaloo tayaan kuugu soo diraya ma iminka ayaan EVC Plus kuugu soo tuurayaa ma iminkadan waay oo kusoo yeeray mahadsan waa tayo service tagi maysid meel fog oo taksi qaadan maysid ee telefoonka lagaa siin waa tayadii u sarreysay ha moogaan tayo service wixii faahfaahin ah ee dheeriyana waxaad kala xiriiri kartaa nambarada shaashada ka muuqda Omar Global awr waliba xamilkii xeero waliba qaadkeed xawaalad waliba adeegeed haddaad kaash xawilayso xaddigu ahaadaba xarumaha dalkeena iyo xag kastoodu diraysaba
xawaaraha ilayskay ku geysaa xaqiiqe cidlo laguma xiiqe waa xawaalad dhaladee haddaad biilka xaaskiya xawilaysa lacag adag ha moogaan Omar Global Money Transfer حوالدها ايه هموغانين Omar Global waa sharikadii xawaalada Amana Express oo ku baahsan dunida oo dhan oo idin ammaan gelisa wax kastoo aad ku amaanaysataan sharikada xawaalada Amana Express amaanadiina ayay idin amaanaysaa oo idin geystaa goob kasta iyo goor kastaba sida ugu dhaqsaha badan abwaaniintii horaa tiri sharikada Amana Express waa loo aayaa oo waa lagu abshiraysaha meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad xoolihiina aad ku amaanaysataan kuna dirsataan sharikada xawaalada Amana Express hagaaga aad baa mahadsantihiin daawadayaal weli waxaa nagala socotaan TV-ga Universal waxaana daawanaysaan doodaan xiisaha badan ee aqoon isweydaarsiga aanu ku qaadaa dhigayna mawliidka iyo meeshuu salka ku hayay waxa ilaahay kitaabkiisa kaga qoran waxaan jeclahay markaan Sheekh Axmed siiyo 3 daqiiqo iyo 12 second Sheekh Axmed tafadal بارك الله فيكم ما شاء الله تعالى وحن ربا ولكن شيخ عثمان ادو ماتسيا ما شاء الله تعالى بوينتسيدي ان ما شاء الله تعالى ان انيغنا امده او عربابو horta hore nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi san hore idin ku sheegayba bisha rabiul awwal labiya tobankeedu dhashay nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam macnaha maalinkuna yawmul ithnain buu ahaa sanadkaasna aamul fil baa lagu magacaaba waa isku waafaqnay walaalkeen jumhuurtu culimadu inay saa u badan tahay marka taasa waxay tahay ma sha Allah ta'ala wax muhiim imma mas'alada isla waqtiga laftigiisu nabigu dhintay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi maxaa waqtigaas oo kalena xaflad lagu sameyn waaye taas culimada muslimiintu way ka hadleen qofka aqliga saliim kalena uu qaadanaya qofku markuu dhasho waa lagu farxaa laakiin qofku markuu dhinto ma lagu farxo culimada al-Imam Suyuudi iyo rag badan oo kamid ah oo xufaadii islaamka ah ka hadashay macnaha maqsadka noocaasa iyo wuxuu yahay iyo wuxuu ma sha Allah ta'ala ku salaysan yahay arinta waxa sameysay nabiga mawlidkiisa waxa bilowday niman la yiraahdo Faatimiyiin oo asalkooda lagu sheega xataa inay ka soo jeedaan qoladan yahuuda inay ka soo jeedaan arrinkaas arrin anigu aan aad u dursanahay oo aan ka soo horjeedo weey maadaama aan matalayo dadka nabiga mawlidkiisa dhiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi aqliga saliimka wuxuusan qaadan karin ikhwaani wal akhawati fillah in nabiga xafladu loo samaynayo oo lagu tacdiiminayo sallallahu alayhi wasallam ammaantiisii lagu ammaanayo nabiga wanaagiisii iyo khayrkiisii looga sheekeynayo inay bilaabaan cadowgii nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi taasna waxaad moodaa arrin aad ma sha Allah ta'ala aan macnaha de suurtagal ahayn inay tahay ma sha Allah ta'ala walaalkii aad baan ma sha Allah ta'ala u mahadinaya maadaama dad culima aqwaashooda u soo qaatay aniguna caawa meeshan aqwaal badan oo culimada aan ku hayo waxaan leenahay horta hore xafladda nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi sallallahu alayhi wasallam marka loo fiiriyo asal ahaanteedaba ilaan quruunul mufaddal soo qaatay walaalkay waxaan leenahay xafladda laftigeeda waxaaba bilaabayba in loo dhalashada uu xafladeeyo waxaa bilaabay as-saadiqul masduuq nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi hadaa dhahdid seebu u bilaabay nabi maxamed xadiidkii abi qataada uu warinayo al-imam al-muslimna uu soo saarayo nabiga waa la weydiiyay waxa la yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi maalinkan maxaad u soomaysaa waa yawmul ithnain wuxuu yiri nabigu waa yawm wulidtu fihi waa maalinkii la idhalay تعظيما لولادتي وينين أن دلشديدا وينينيان أسوميا صوم كاس بولي مد نبيغو قفكون إنو صوم لي ماذا معناها موسى معناها لو مدين حديث كلا جرى صحيحين ككل ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه وليه هي حافظ كوين ابن الحجر العسقلاني وأمير المؤمنين في الحديث وعليه وحا إذا هرتيبوا ليه حفلة النبي موليد كي صلى الله عليه وسلم
waxaan u haysanaa asal thaabita inuu kusoo arooray ereygaa u fiirsada asal thaabita inuu kusoo arooray wuxuu soo qaadanayaa xadiidkii saxiixaynka ku dhignaa oo nebigu uu soo galay qadima almadiina fawajada alyahuuda yasuumuuna yowma cashuuraa فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجا موسى فنحن نسومه شكرا لله تعالى في حديث كان وحوليه هاي نبي وحصوق لي مقالة المدينة وحو أركي نمانكي يهود الأورنجي أو وينين يا مالك عاشورا وبشا محرم طبعا كذا هو سؤاله وحو مالك كان أدو وينين يسين وامحي مركز واحد ومالك فرعون وإلهي هلاقي نبي موسى يقوم كيسين وبدبادية شكرين أنكو شكرين إنه بان ما شاء الله تعالى أسومينا وحصورة قالت دادك قبل كود إنا يدهان ما الله صوم حفلة محال الله نقايا محير ابن الحجر العسقلاني حديث كان محال لك قادنايا وادقرانا يسان ابن الحجر العسقلاني بخاري وشرحي علماء محدثين تادتك أقوى وين واي هذا الكيسان بالقيمة يا إخواني والأخوات في الله عليها فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إزداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نذير ذلك اليوم كل سنة والشكر يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة ونحو ذلك وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعليه حديث كان وحلقة فائدة إلى الحديثكو سيدي رجحي ميل إسكامية لو والله شرحي محدثين إسلام كاكا هذا شيء وحلقة فائدة يا وحول با إن مال معين أو شكري اللقاء دين كرو صوم بالسومي كرا صدقة الله بحين كرا قرآن بالله أخرين كرا وحيالو وناكسن بالله سمين كرا وحدي ذي ماله ليه محا كوين نعمة soo dhalashada nabigeena uu soo baxay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh arrinka noocaas xagee ku dhigantaa ma waxaan anigu jeebkayga ka keensanaya mase waa wax kutubta muslimiinta ku qoran iyo dadkii culimada ahaa oo diintan looga dambeeyo scholarska ahaa nacam ha alxaawi lilfataawi al-imaam as-suyuti oo muhaddithiinta islaamka kamida kitaabkaas alxaawi lilfataawi bay ku qoran tahay mujallada koobaad safxada 196 bay ku qoran tahay waxay kaloo ku qoran tahay mas'aladaasi al-mawaahib al-ludanawiya kitaabka la yiraahdo mujallada koobaad safxada 140 bay macnaha ku qoran tahay oo jeeda marka culimada muslimiintu inay leeyihiin mawlidku waa banaayay hatta iska dhaaf ibn al-hajj al-asqalani walaalkii dibna waa uga soo celin doonaa ibn taymiya oo kamida shuyuukhda ugu waaweyn ni shakhsi caalimna ahaa oo dadka mawlidka mucaarada shuyuukhdooda kamida حتى مولدك وأقولي كتاب كيس اقتضاء صراط مستقيم بيكو تهي وحوليه مولدك لبقى يبود بأقيبنا يا إما مضاهاة وإما مشابهة للنصارى وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد إن شاء الله تعالى أرجو أنكم جوجي لو ذي النوادي اللي السنة ده ذي نحن اللي السنة أكو أظن كسينيا الشيخ أحمد وحي الدليل بان هيا دين وي ابن حجر العسقلاني بسو دليل شدي علماء فربنا بشيء ابن تيمية وكم دي هاي الشيخ أحمد وحان كارمنا إن النوشيكتid إلهي بساسري رسولك ساسري دمدنا علماء أين شيخ وشيخي أو سنوقتid قرآنكم حوك اللي موليدك حدوسا قرآنكم جنا سنة محيك هذا هذا هدايا واحد شيكتي حلي النبي قال ما دقنين صحابتي ما دقنين خير القرون قرني صدح دانا متكون ما دقنين هذا الكاغاس waxa laga fahmaya axaadiis ku soo aroortay ma jirto sheekhu wuxuu leeyahay culimo ogal axaadiis ma ku soo aroortay daliil baa loo hayaa adigu waxa la daliil ma hayo diinta ilaahay iskhilaaf ma lahan tafadal waxa haysta 3 daqiiqo barakallahu fiik ma sha Allah alxamdulillah waxa ilaahay mahadiisa in diintu ay tahay waxaan hadda laga been sheegi karin dad badan oo wax garta oo wax yaqaanuuna dhageysanayaan nabigu salawatullaahi wasalaamu calayhi ma uusan bilaabin in xaflad loo dhigo maalintii uu dhashay xadiidka uu walaalkay sheegay qof islaamka ka mid ah hadduu keeno qarni tusaale ahaan wax kale iska daa ilaa qarnigii shanaad hal qof oo muslimiinta ka mid ah ama waqtigii mawlidka la bilaabo ka hor qof hal qof oo muslimiinta ka mid oo saas u fahmay hadduu waxaan u diraa maahan caawo inuu asagu baxsi sameeyo oo kutubta dhex galo oo uu soo raadiyo hal qof oo muslimiinta ka mid ah oo warkiisa qabashalay oo saas u fahmay hadduu keeno waxa weeye waxaan sheegaynaa waxba kama jiraan xadiidka uu sheegay meel dhow iyo meel dheer shaqo ugama lahan xaflad loo dhigo maalintii nabigu dhashay sabab nabiga waxaa la weydiiyey asxaabtu weydiiyeen maalintii aad dhalatay maxaa xaflad lagugu dhigi waay su-aashil ma hayn
maalintaas xaflad ma lagu dhigi karaa maahan su-aashu xadiidka saxiix muslim ku yaal waxaa nabiga la weydiiyey sawm ay arkeen maalin kasta oo isniin uu soomayo ayay weydiiyeen soomkan xikmadda ka dambeyda oo u soomta noo sheeg 3 arrimood u sheeg laakiin sababahu nabigu u sameynayay maalintaas inuu soomo cilado badan xadiid kale ayaduna wax kale ku dareen nabigu wuxuu yiri waa yawmun wulidtu fihi waa maalin isniin ahaan ka hadla ee ka hadli ma 12kii bishii rabiicul awal sanadkii caamul fiil oo la dhalay maalintaas in la soomo ma uu ka hadlayo haddii saas ahaalad waxaan badhihi lahaynba wax uuna arrintaas ka jiri lahay laakiin saas maaha ujeedadu isniin maxay talaada maahan arbacana maahan axadna maahan isniintan aad soo celcelid maxaa keen 3 ciladood oo halka xadiid sheeg waa maalintaan dhashay oo maalintii nebi layga dhigay oo maalintii qur-aanka laygu soo dejiyo yiri axaadiista kale waxay sheegayaan sababta oo nebigu khamiista iyo u soomayo iyo isniinta inay tahay maalinta ilaahay loo bandhigo acmaasha marka asxaabtu waxa ay weydiiyeen maahan xaflad nebiga loo dhigo laakiin waxay weydiiyeen isniintan soonku kusoo noqnoqay oon axadna aadin talaadada aan horta xadiidku waa saas nabigu marka kuma uusan koobsan maalin aan dhashay way ma dhihin laakiin cilado badan oo sheegay axaadiista kalena cilado kale sheegeen taas waa midda labaad asxaabta abu sufyaan asagoo gaal ah ayuu wuxuu qirtay nabiga asxaabtiisu say ula dhaqmaan jacaylkay u qabaan hadduu weesaysto weesadu inaysan dhulka dhacin hadduu xaakoodo xaakada la barakaysayo oo laysmarayo nimankii noocaas ahay ma laga waayo hal qof alaysa minkum rajulun rashiid hal qof oo wax garta oo yiraa war maalintii nabigu dhashay aan xasuusanno maalintii qur-aanka lagu soo dedejiyay aan xaflad u dhigno maalintii dagaalkii beder u dhacay aan xaflad u dhigno wixii dhacdooyin waaweynaa oo taariikhiyaha oo la halmaamaha aan xaflad u dhigno ma garan waayeen asxaabtii waxaan ka dhignay asxaabtii oo dhan dadaan wax garan oo maaragtay aan ku baraarugin oo mashquulsana inay ahayeen hal qof oo taabiciintii oo arrintan fahmo oo yidhaa war arrintan waa naga hoos baxday waa la waayey taabiciintii waa la waayey 4 madhab culimadoodii iyo mashaayikhdoodii imaamu shaafici imaam madhabkii dhan oon haysano imaamkooda uu kamid yahay hal qof lama ayo intaas cid fahamtay cubaydiyiintu inay sheegeen ayagu keeneen kiristaankana nimankii iyo faatimiyiinta oo shiicada baatiniyiinta oon muslimka ahayn inay keeneen aniga maahan xaafid ibnu xajar nin dhowr qarni ka horeeya rag dhowr qarni ka horeeya sheega xaafid suyuuti dhowr qarni ka horeeya albidaaya walnihaaya xaafid ibnu kathiira iskale oo qarnigii 8aad xaafid ibnu xajar wuxuu dhintay 850 mise 51 meelahaas dhintay marka waxa islaama aniga waa ninka sheegahu waxaa sheegay cadad kabiir min alculamaa culamada islaamka intaasoo sheegaya sababta u dhigan maxay tahay waxay ugu talagaleen masar ay xukumayeen nimankan waxay ka yimaadeen dhulkan maqrib galbeedka africa oo khilaafaad iyo dagaal iyo dhibaato laga dhab si dadka ay masarna meel waxay aad isgadgadis badan si dadku u degaan oo dad nabigii iyo saxaabtii iyo maaragtay ay la duuban aalu beytka dad la duuban say uga dhigaan waxay sameeyeen maahan hal xabo maalinta nabiga miday ka ahayd faatima loo sameeyey xasan iyo xuseen loo sameeyey cali ibn iyo kuwa badan maahan wuxuu hal xabo dadka mawlidka dhigaa halkaas xabo bisay ku dhegeen taas waa mid xadiidkii uu sheegay oo kale meel dhow iyo meel dheer kama soo galo mawlid nabiga la dhigo nabigu magaalada madiina markuu yimid yowma cashuura maalinta la yiraa ayaa waxaa maaragtay soomi jiray yuhuudda yowma cashuura yuhuud kaliya ma ahayn waxaa soomi jiray macal jaahiliyadii waxay ahayd maalinta kacbada dhabiska laga bedelo oo carabtu ay weyneeyaan oo maalin caanahay ahayd waana la soomi jiray laakiin nabigu markuu arkay yuhuudiyo soomayda oo u weydiiyey xigmadda ka dambeyd oo yidhahdo waa maalintii nabi muuse ilaahay badbaadiyey ayuu nabigu wuxuu yidhi naxnu awlaa bimuusa min annaga kaga xaq leh nabigu marka wuxuu sheegay asxaabtu inay maalintaas soomaan waxaa keenay amarkii nabiga inuu maalintaas la soomo oo isagu amray ay u soomeen maahane haddii 100 xafladood la dhigo iyo 100 nabi haddii la badbaadiyo maalin sharciyeysan oo la soomi kara maahan waana bidco aan meel dhow iyo meel dheer ilaahay loogu dhowaa karin hadday khayr ahaa laheedna asxaabta fahmi laheed taabiciinta fahmi lahaayeen kuwii ka dambeeya fahmi lahaayeen inta ahlu khayrkeed warkii uu walaalkeen yiri xaafid as-suyuuti dib ugu soo noqon insha Allah xaafid ibn xajar intaan sheekh Axmed Sinaad su'aal ku weydiiyo warkaagu waa cad yahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaalidu dhaqan ay leeyihiin baa jira oo u haystaan in Ilaahay iyo nabigiisa ugu dhawaanayaan sallallahu alayhi wasallam waxaan ugu soo gaaray iyadoo la qaado Axmed Nabi Muhammad ya Shaafici al-Qiyaama nuur salaam alayka
dadka qaadaya mararka qaarkood indhahooda ilmaa ka da-aysa qulubtooda ilaahay baa og laakiin markaa wejigooda fiirisay jacaylay nebiga u qabaan waayey maxaa ku jaban inaa qaado axmed nebi maxamed yaa shaaficu alqiyaama maxaa ku jaban warkaaga cabdulxafiid ilaahay khayr ha ku siiye warkaagu wuxuu u dhow yahay walaalkeen waruu yiri oo ahayd mawlidku wasiirada nebigoo la akhriyo raashin la dhiibo khayraad la dhiibo in nabiga la ammaano waxaaso dhan nabiga in la ammaanay wax ceeba ma leh waxaa ceebtana waxay tahay nabiga qofku markuu rabo inuu jeclaado asagu iska hindisi maa sida uu rabo uma jeclaa karo wuxuu u jeclaanaa sidii ay diinta islaamku tiraa sidaana nabiga loo jeclaadaa haddii kale waxaad lamid tahay qof ay shirkad shaqo siiday oo la yidhi xafiiskan ka shaqay combyuterkan waxaan geli maalin kasta musqulaha tirtira meesha ka horeedana ranjiyeeye dhulkana bishu markay dhamaatana yidhaha mushaaran raba la yidhaha ma yaad u shaqay jirta qofku shaqo waa qaban karaa laakiin shaqadaanu haddaysan waafaqsanayn wixii rasuulku la yimid hadday ficnad waxba tarimiya maxaa kalifay walaalkeen waxa uu isku daray wax la isku dari kara maahan haddaad tiraa waxaan waa sadaqo waa nabiga dadka wax la siinaa nabiga la ammaana waxyaabahan inaad isku darsato oo hal maalin oo sanadkiiya aad ka dhigato oo ku beegato waa khalad maxaa khalad ka dhigay waxaa khalad ka dhigay oo mamnuuc diinta ka dhigayo waa sharci degsan iyo qaanuun iyo nidaam waxaana xaq u leh nebiga xataa adduunyada lama ogola inaad isku darsato baristimol iyo kaniiniga wadnaha xanuunka iyo midka sokorowga iyo midka dhabar xanuunka inaad inta isku darsato tira kulli dhaqaatiirta qorta lama ogola waa run mid walbaaba sax u gaar u yahay laakiin meesha loogu talagal bisa loo isticmaali karaa wax badanna waa sheegi lahay laakiin waqtigaaga jazaak allah khayr sheekh axmed waxaan inaad waqtigaaga ku siiya asaga aad maxay tahay insha allah tacaala hadalkiisii aad ku tixraacaysid laakiin waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo nabigii ma dhiginin kama dardaarmanin saxaabadii ma dhigin taabiciintii ma dhiginin taabiciintii ma dhiganin diintana meel waxa la iskama soo darayo oo waatuu hadda sheikhu sheegayey nebigana sida asaga uu yidhi hala ii jeclaadaa loo raacaya qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allah aali cimraan aayadda 51 idinku xagee ka keenteen mawlidka in la dhigo maxaa daliil cadoo haysaa hadduusan nebigii dhiginin abubakar inaa nebiga ka jeceshay su-aasha waa taa بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شرط هدان كاجا جواب ان شاء الله نقدوين كان كلا ولالكنا waa usoo noqonaya time ba ku siina taas time ba siinaysa gooni aha marka horta Abdul Hafiid waa ku sheegay horta sideeda marka munaadaro la sameeyay waxa wanaagsan qori ku taag waxa ma taro waxa raba adilada iyo nusuusta hadda iyo macnaha waxyaalaha la isku sheegay in si fiican loo fahmaa la rabaa shayga la yiraahdo tarkiga macnaha nabigi shaygaas macnaha uu ka tagay uu san sameyn shaygu xaraam iyo bidca horta ma ku noqdo maxaa yeelay nabigu umuuro fara badan markuu ka tagay qaar wuxuu uga tagaa hadda ka soo qaad abiisa luguleydii oo kale nabigu ma cun inta loo keenay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadana wuxuu dhahay xaraan macnaha ma aha macnaha shaygan fiiri nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiis baa wuxuu ku leeyahay Aisha ay warinayso tadakara rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr ميلادهما حديث كهو حديث حاوية حسن الإمام الطبراني يهيتمي بسورنا نو صومالية ها وحي صومالية هو حاوية معناها الرسول إلهي أبو بكر وحي حسين أو أي كشي كينيين للا شضوضة صلوات ربي وسلامه عليه ها لبضو ضبا وحي كشي كينيين أي حسين للا شضوضة معناها كشي كين سانا نيجا دي لذا أصو حسي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حفلدي سإنتي ككفيري شيء والبا وحال فيريا marka la dhaho qofku uu dhaho shaygan sharciga xaqiisa macnaha aadinaya shay walba waxa la eegaa shayga sharciga islaamka ma ku leeyahay madkhal ila afar shay baa la daliilsada islaamka alquran wal hadith wal ijma' wal qiyas baa la daliilsada marka shayga meesha waxa lagu hayo fiiri meesha waxa lagu hayo xafladda dhexdeeda waxa gudaheeda dhacaya horta sharcigu islaamku ma diiday mise ma diidin intaan tarki iyo waxa macnaha tarki iyo waxas intaan la fiirinba siiradii nabiga laga sheekeynaya nabi maxamed baa la amaanaya inkastoo sheekhu amaantii nabiga uu ma sha Allah taala una la waafaqay wax aad ugu farxo weeye ma sha Allah taala barakallahu fi sababta dad badan oo aan mawlidka kala doodi jirnay xataa amaanta nabiga waa diidi jireen waana loo baahanyaa amaanta nabiga ma sha Allah taala waafaqeeda iyo khayrkeeda sadaqa la bixiyo wanaag la bixiyo waxaas oo dhan baa ma sha Allah taala meesha ku dhigan marka sida laga fahmaya ahadiista nabiga iyo culimada aqwaashooda xafladda nabigu adiladaas iyo noocaasa loo haya aan ka soo hadlay macnaha ka soo hadlay wayna banaan tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xafladiisa in la tacdiimiyo waxaan rabaa su-aasha waqtigaaga inaan ku siiyo arrimihii sheekhu ka hadlay tafadal dabeena waxaan u gelaynaa khaladka telefoonka barakallahu fiik tafadal cami ha fiiri ma sha Allah taala walakin horta hore arinta dhahaysa
nebi maxamed arrinkan ma samayn abubakar ma samayn cumar ma samayn cuhmaan ma samayn walaalkay fiiri macnaha arrinka noocaasa ma samayn oo af soomaali ahaana daliil ma noqoto waxaa la rabaa qofku markuu wax sheegayo naska qur'aanka ah iyo xadiidka nebiga ijmaaca culimada iyo qiyaaska afartaasaa la daliilsadaa qofku inuu soo bandhigaa macnaha la doonaya hadda fiir ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun nebi maxamedow ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa dadku ha ku farxeen wax walba oo ay kulminayaan waxaa uga khayr badan macnaha faraxaasi fadliga qur'aankaa lagu sheegay iyo diinta baa lagu fasiray siduu cabdullahi ibni cabaas ku fasirayo midda labaad raxmadana nebigaa lagu fasiray oo nebiga inuu raxmad ahaa walaalkeen waa nagu waafaqay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin xadiidkii aan labadii xadiid oo saxiixa aan soo sheegnayna waa u daliil midda kale waxaan rabaa sheekha maasha allahu tacaala su-aalihiisana dib ha uga darsado wuxuu yidhi culimadii muslimiintu ma isku waafaqin nebiga xaflad in loo dhigo walaalkay sheekh ibnu taymiya mashaa'ikhdiisu ku jira ma ahan soomaalidu ma wanaagsana wax in lagu been abuurto wax walba waxaa wanaagsan si waadixa in loo keenaa macnaha wanaagsan ibnu taymiya waa qabaa in xaflad loo dhigo mawliidka salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh kitaabkiisee buu ku leeyahay iqtidaau siraati lmustaqiim fiiriya iqtidaau siraati lmustaqiim bay ku qoran tahay kitaabkaasay ku qoran tahay juska safxada 266 buu ku qoraya ibnu taymiya wuxuu leeyahay ima mudaahaat wa ima mushaabahata lilnasaara wa ima maxabata lilnabiyi sala allahu alayhi wasalam wallahu qad yusiibuhum cala hadihi almaxaba walijtihaad abdulxaafid ha iga hilmaamin walaalkeen ha qorto walaalkeen sheekhaysii ibnu taymiya miyuu ka caalimsan yahay markuu leeyahay culimada islaamku mawliid ma ogola arrintii ahayd yahuud baa laga soo gaaray taa falciyaadu billaah anugu ma dhihi karo siiradii nebigaa yahuuda laga soo gaaray ma dhihi karo jacaylka nebigaa yahuuda laga soo gaaray ma dhihi karo ammaanta nebi maxamed baa yahuuda laga soo gaaray maxaa yeelay mawlidku wuxuu ka kooban yahay axwaasha noocaasa aan kasoo hadalnay weeye taas marka qofku inuu fahmo oo si fiican uu u tadaburo waa muhiim maa sha allahu tacaala maxaa kusoo hadhay ammaanta rasuulka walaalkeen waa nagu waafaqay wuxuu yidhi nebi maxamed waa la ammaani karaa alxamdu lilah wax aad lagu farxa wey waa markii igu horreysay oo aan debate noocaana ka qayb qaato oo qof ka soo horjeeda mawliidka uu dhaho nebi maxamed waa la ammaani karaa ammaantana adilo badan baa kusoo aroortay ilaahay baan nebiga ammaanay naftiisa asagaa is ammaanay dadkii wa wanaagsanaana nebiga waa ammaaneen ilaahay baa ammaano ilahay wuxuu yidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim dabeecad weyn dusheed baad ku sugan tahay nebi maxamedow nebigu asagaa naftiisa is ammaano uu yidhi ana sayidu alawaliina waalaakhiriin anigu waxaan ahay dadkii hore iyo kuwa dambeba boqorkoodii iyo sayidkoodii baan ahay dad ammaanuu rasuulku lahaa sida xasaan ibnu thaabit cabdullaahi ibnu rawax kacab ibnu zuhayr kacab ibnu malik raggaas oo dhan buu lahaa nebigana waxaa lagu soo dhoweeyey maalinkuu madiine galay qasiidadii mashhuurka ahayd ضلع البدر علينا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ضلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر مطاع جئت شرفت مدينة مرحبا يا خير داعي نبي إلا أماني كرب بخاري مسلم بيكو قرنتهاي كثير الأدلة وأنا ميشان كسو كوبي كرين إخواني والأخوات في الله مركا ولالك وحان كربا ابن تيمية ابن تيمية سؤاشا كتاب كان مكتا لا اقتضاء صراط المستقيم ابن تيمية إنه مولدك أقليا قفكنا مركو وحكا جوابيو الله كعبسي يا عدالة إنه أقل جواب ونكسن وبالله توفيق وقرتي أدو شيخ محمد محسن تاي شيخ عثمان أدار بنا نكوسو دويو الشيخ أحمد وحو يري waxaan ahayn nabigii ma sameyn iyo saxaabadii ma sameyn oo daliil wada haysin ma jirto taasina daliil ma ahana waa maxay tahay adi aragtidaada weeye waxaa laga rabaa daliil cad masalada labaadna waxay tahay sheekh ibnu taymiya sheekhul islaam ah ayaa qaba buu yiri soo sheekhu hadalka u dhigay in mawlid loo dhigi karo marka daliilkaagina kan arinta sheekh ibnu taymiya kan insha Allah taala tan laba daqiiqo in siinay because telefoonadii aan sugayay bulshooyinta Soomaaliyeed waan ka jawaaba laakiin walaalkeen waxa uu codsaday inaan wixii wax yar si maadaama dadka nafta in la anfaco la rabo hadhow taasay loo badiyo hadii la rabo laakiin aan cadeeyo kaliya waxa aan rabo nabigu ma sameeyay sallallahu wasalaamu alayhi qof kasta oo diinta meesha albaabkeeda xataa soo istaaga wuxuu fahamsan yahay sidoo ku fahamsan yahay waxa loo kala saaraa
wuxuu inay adduunye xiriir laleeyihiin iyo inay diin xiriir laleeyihiin in allah loogu dhawaado oo aakhiro qofku uu ajar ka helo labadaas arrimooday kala yihiin wixii xiriir lale inaad aakhiro mushaar ku hesho ood ajar ka hesho culimmada islaamka waxay isla yaqaaneen al aslu fi lcibaadati altawqiif wax kasta oo ilaahay loogu dhowaana waa inay noqdaan wax laga ogaaday halka wado oo laga ogaa kara ilahay wuxuu uu rabo oo ah nabiga shardiga camal saalix halkaas bis waay xataa salaada saa rabta uma dhigto saddex nina nabiga gurigiisa yimaadeen xadiis bukhaari iyo muslim ku yaal mid wuxuu yiri anigu weligay waan soomaa mid wuxuu yiri weligay anigu xaas guursana mid wuxuu sheegay inuu uusan habeenkii seexanayn saddexda arrin soonka iyo in dadku cibaado u go-aan salaatuleyl tukado saddex shay mid walbaaba uu maasha allahu yahay laakiin go-aanka noocaana inaad adigu qaadato sharciga qofkii degan dejinayo mahid sharciga waxaa iskale nebiga iyo allah weliba allah sharciga dejiye nabigu dadku soo gaarsiiya waxaan in ilaahay uu rabo meesha laga ogaa karaaho waa wadada nebiga ciddii meel kale ka ogaataana waxay ajarka iyo mushaarka ka helayaan wadadii kale ka ogaadeen waa waxa keena marka wuxuu hadday diin yihiin nebi maxamed ayaa looga raaca man camila nabigaa dhaha man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad xadiis muslim ku yaal riwaayo kale oo bukhaari muslim isla warinayan man axdatha fi diinina hada maa laysa minhu fahuwa rad wixii diinteena qofkii xadiid caaisha fi saxiixayn haddaad samaydo wax aan nabiga looga daysan oon caddayn rasmi aad u hayn adaan lagugu soo celaa aakhirana hal shay ka helmaydid ama ku dhibto ama ku xoola bel taas waa waxaa kuu soo hartay marka ma samayn haddaad maqasho macnaheedu waa saas aakhiro si aysan u dhicin adoo wabadaal lahum min allaahi ma lam yakunu yaxtasibuun si aysan u dhicin qul bifadli illahi wabiraxmatihi walaalkan sheegay ayad quraan waa run ayadda quraanka waa ayada isla waafaqsan qul bifadli illahi wabiraxmatihi jumhuur almufasiriin wa jumhuur alculamaa min asalaf walkhalaf waxay ku fasirayaan wabiraxmati islaamka inay tahay islaamka in lagu farxo way waxaan ka soo qaadana walaalkeen raacay hal riwaayo oo cabdullah bin cabaas laga soo wariyey oon la oqoon anigu meesha ay jirto ayaa sheegay laakiin asagaanba ku waafaqa tusaale meesha aniga walaalkay u turay in nabiga lagu farxa la yiri ma adaa go-aansanaa sidaad rabto inaad ugu faraxdo ma sameeya hal ilbiriqsi holland ayaa wax ka dhacday waa mashaare macruuf ah den helder magaalo la yiraa ayaa waxaa soo degay niman qaxootiya oo soomaaliya dhowr xabaha la geeyey journalka lagu soo qoray holland dad qaxootiya inay magaaladan soo degeen waa arrin aan ka xunayna dadka u sheego laakiin si ay u fahmaan aayadahan iyo waxaan islaana journalka waxay ka akhriday niman soomaaliya ka yimid oo dalkoodii dhibaata ka dhacday oo xaasaskooda kasoo tegay oo xoolahoodii kasoo tegay inay meeshan yimaadeen oo gacmo maran dowladduna ay guri adareyskaas dejiday maalintan dambe u tagtay nin sheekha oo culimmada soomaaliyeed kamid oo magaalada deganaaya ii sheegay wuxuu yiri hebel iyo hebel iyo hebel ayaa magaalada deganaa gabadhi waa u tagtay qof ahlu khayr ah ay isku haysatay oo holandaysa gurigii ugu tagtay waxay tiri noo yahow xaaladiina journaalkan ka akhriyey inaad niman duruufaysantihiin waxaan idin samayn kara mal lacag idima hayo waxba idima hayo laakiin anigu jirkaygan ku tabaruca maadaama aad naagihiin iyo ka timaadeen intaas anigu idinku sadaqaysahay tir qofku hadduu yiraa ka waran ilaahiyaan ugu dhowaanaya aduu iskama go-aansan kartid haddii kale waa iska noqon qof walbaa sheegi kara diintana waxa bidcada waxa loo diida waxay ahayd sida kirishtaanka toodii sida loo barxaayo oo loo barxaayo in la oqon waayo marka dambe yaa soo horreeyey yaase dambeeyey lama ogola marka ilaa yowm alqiyama warkii uu yiri ibnu taymiya kitaabkiisa wuxuu ku yiri walaalkay inuu kitaabka inuusa akhrinaan u malayna oo qolo kale oo arrintan u jadbaysneed inuu ka soo qaatay anigu waan oqan waana arkay qolooyinkuu ka soo qaaday ibnu taymiya mawlida fiican dheema wuxuu u kala saaraa dadka mawlidka dhiga ayuu waa kala foolxun yihiin leeyahy laba darajay leeyihiin oo leeyahy darajo waa niman sida nasaarada ama kirishtaanka qole inay ku daysata rabta maadaama iyagu ay maalintii ciisa dhashay maalin ay u yaqaaniin ay xusaan qolo challenge garayneeda qoladaas oo saasoo kale iska dhacayda qola waa saas uu leeyahay qolada foosh aad u sii foosha xun qolana wuxuu yiri waa dad iska juhala oo muslimiin ah oo nabiga jacaylkiisii uu dhibaatadan la galay kuwaas waa ka dhib yar yihiin oo leeyahay labada qaybood saasuu ku sheegay markaasuu asagu inta midbaa la tacaadufay oo wuxuu yiri waxaa dhici karta wixii ay sameeyeen oo foosha xumaa in dembi lagu siiyo oo waxba ajara laga siin laakiin niyadiisii fiicneed waa wax dhici kara ilaahay naxariistiisa in wax uu la fiiriyo marka ibnu taymiya ma dhahay halka kelimo aan kusoo gabagabina waxay tahay waxa wax taraahu waxay tahay oo aakhiro lagu badbaadaaho inaad nabiga raacday ee sida gaalada looga yaqaan hal maalin waalidkii baariga in loo noqdo la rabay inaad maalinta hooyada la yiraa iyo maalinta aabbaha
hal maalinoo nabigu kuleeyahay 12 rabiicul awala in qofku noocaas noqdo nabiga jacaylkiisu saas maahan nabiga ammaantiisa iyo jacaylkiisu waxay tahay sidii uu yiri intaan samay taas way midda saxda oo aakhirna aad wax ku helay nabi maxamedna uu ku noqonayo nabi ay ummadiisi sidii la rabay ay u raaceen marka waxaan jeclaanahay waxaan ka soo dhigaynaa ibnu taymiya oo sheekh caalim islaamka maya caalim islaamka kamida oo culimadeeda kamida way culimadiisana kamida hadduu xataa dhihi lahay mawlidkaa la dhigaa anugu maahan aniga iyo culimadeed iyo islaamku ma raac ibnu taymiya maahan daliil la daliishado anugu inta u imaad sheekha ibnu taymiya yiriya dhihi ma sababto ibnu taymiya daliil maahan xadiid maahan aayad maahan qiyaas maahan ijmaac maahan qof culimaha wax garta oo sheekh warkiis la soo ordaahuna ma jiro culimada waxay yidhahdeen aqwaalu lculamaa yustadallu laha walaa yustadallu biha warka culimadu waa wax un iyada loo raadiyo cadayn laakiin iyada cadayn maahan ibnu taymiya hadduu dhihi lahay xaflada la dhigaa asaga ilkaha biinsan looga siibi lahay waa gartay asoo sheekhayga oo hadda madaxa u saaran yahay waa gartay sheekh axmed waxaan rabaa adinaan ku siiyo sheekh cusmaan kusoo celin teleefanada u gudbo ibnu taymiya daliil ma aha la yiri ibnu taymiya waxaad sheegtay inuu maaragtay yahay sheekh caalimo weyn kulligeena wada qarsanahay daliil ma aha lagu yiri qaala allah wa qaala rasuul ma haysid daliil maxaa u keeni la'da ibnu taymiya بارك الله فيك horta cabdulxafiid horta waxa wanaagsan qofku horta waxa wanaagsan markaan doodayna cilmiin horta inaan u doonno laakiin sheekadu hadday noqoto qori ku taag macna badan macnaha bad samayso markii ugu horeysay anigu hadlaya waxaan war mawluudka nabiga wuxuu ka kooban yahay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed oo la amaano jacaylkiisu ka kooban yahay war intaasoo dhan waa wax madqal looga haya shareecada islaamka qul bifadlillahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun walaakiin wuxuu yidhi raxmadda waxaa lagu fasiray buu yidhi ijmaacu lculamaa islaamka inay jumhuuru lculamaa waxaa lagu fasiray raxmadda inuu yahay islaamka uu yahay haddaba waxaan kule fiiri qur-aanka marka la fasirayo cabdulxafiidow waxa ugu horeeya qur-aan lagu fasiro dee qur-aankaaba ku dhawaaqayba nebigu inuu raxmad ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayadoo mufasiriinta islaamku uu ka mid aha cabdullahi ibnu cabaas iyo raggii la midka aha ay ku fasireen raxmaddu inay nebiga tahay qur-aankaaba caddaynaya nebiguna asagaa caddaynaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay baa dhahaya wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuma aanan soo dirin nebi maxamedow ilaa caalamka oo dhan naxariis baa u tahay xadiidkiisa nebigu alimaamu subki uu soo saaraya isaguna wuxuu leeyahay inamaa ana raxmatu lmuhdaat waxaan ahay raxmaddii iyo naxariistii lasoo hadiyeynayaan macnahay taasaan marka dhinacii aayadda jaanibkeedii aan ka dhahaya waxaan usoo qaadanayay ibnu taymiya waxa waaye meesha aniga waxaan ku hayaa waqtigaa ciriiri noga mooyaane intaasoo culima oo muslimiinta oo mawliidka ka hadashay kutubna ka qortay waxaa ka mid a ibn alxajar alcasqalaani waxaa ka mid a alimaamu alhaythami waxaa ka mid a alimaamu sayuuti waxaa ka mid a alimaamu sakhaawi waxaa ka mid a mufasirka weyn ibnu kathiir oo reer dimishqa ah kitaabkiisu kusoo qorayaa mawliidku inuu banaanya kulligood kitaabbay ka wada daabaceen oo macnaha ka qoreen ibnu taymiya waxaan usoo qaadanayay waxaa weeye walaalkii aan u tusaayey oon islahaa bal xoogow bal waxa ku fahmo waa mashaayikhdu ka mid yahay oo isba sheegtaan nin sheekha ha aado barakallahu fiik waqtigii ma dhicin weli aan filaya may waqtigaaga ma dhicin waxaan telefoonada gulma dhamayso kelimadaada marka saasaan macnaha ugu soo qaadanaya oo aanu lahaa ibnu taymiya mas'aladan qaba eraygu uu ku fasirayna eraygu saas ma ahan wallahu qad yusiibuhum calaa hadihi almaxaba walijtihaad buu leeyahay midda kale walaalkii waxaan rabaa inaan u sheego nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh xafladiisa in la dhigaa la diidan yahay ayadoo maxabo iyo jacayl iyo wanaag looga sheekeynayo halka aniga waxaan ku hayaa waqtiga iga dhacsane risaalooyin lagu magacaabo oo alimaamu macnaha sheekhan la yidhaahdo ibnu baaz uu soo qoray oo fataawooyin waxaa ka jira sacuudiga waxaa ka jira wax la yidhaahdo usbuucu sheekh اسبوع الشيخ معنيه سوحا ويه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب باويك دم بالو حفلديه وليبا وحيالها كل جانو بوينتس كعاوة عن سوقري هدي وقتي أنو هلو دتكو ويعجب لها ينو ويابي لها marka waxa cajiib wala la xafladii ibn abd wahab qac ka si police ado aad soo koobay dabadna sheekhan siina barakallahu fiika xafladan horta risaaladan wuxuu ku diidayaa wuxuu leeyahay qaybtan ihtifaalka nabigu ma banaana waa bidco waa shirki wax loo baahan yahay maaha asagana waa loo dhigaya asagana waa loo dhigaya macnaha waxa lagu magacaabaa ma sha Allah ta'ala risaaladan ama hawshan oo maxamed bin abd wahab loo dhigay waxa lagu magacaabaa xukmul ihtifaal usbuucu sheekh baa la dhahaa أسبوع الشيخ بالوجو مجعبة صوغب شيخ أحمد ما دام نحر كذا نصير نحر كذا نحر كواحد أسبوع الشيخ وحلوجو مجعبة
xaflad baa loo dhigaa week dhan maxamed ibn cabdilwahaab sheekh maxamed ibn cabdilwahaab xafladaa sacuudiga lagu dhigo xafiisyada waa la xiraa meel walba waa la xiraa waa la amaanaa qasaa'id baa loo qaadaa sida kutubtooda ku qoran iyo macnaha diiwaanadooda aan kasoo laqnaynay aan kusoo qornay macnaha cajaladihiisa iyo kutubtiisa la qaybiyaa waxaana loogu bandhigaa oo laleeyahay dacwadiisaan faafinayna usbuuc dhan bay socotaa sometime haddana xafladii nebiga loo dhigaayay dadka sacuudiga ku noola culimada gobolkood oo dowladda la shaqeeya waxay leeyihiin ma banaana waa shirki iyo bidco bal walaalkay arrintaan waa ku faa baarak allah halkaas ku joojiye sheekh cusmaan waxaad diintan tahay nebiga in mawlid loo dhigo oo la xuso oo la xadreeyo oo la digriyo oo la ammaano haddana waxaad dhigtaan soo hadalka u dhigay weeye sheekh maxamed ibn cabdiwahaabna inaad barmood garaysaan oo loo tumo maxaa lahaa maxaa lahaa mawlid maahana loo dhigo yani wiig la siiyo maxamedun rasuulullah sala allahu alay wasalamna wadaad yaroo sacuudiga jooga laga kormariyo see ku dhacda waa arrin runtii aada u qurxan in nala weydiiyo walaalkay runtii waxaan aada ugu faraxsanahay si kasta oo aan u dareemaya in hubkii ka dhammaaday iyo rasaastii haddana inuusan nin aada u akhyaara inuu yahay aan runtii aada ugu faraxsanahay aayaddii qur-aankeed waqul bifadlillahi wabiraxmati haddaan waxaan idhi xataa ka soo qaadno wabiraxmati inaan ku fasirno nebi maxamed macnaheedu waxay tahay inaad ku faraxdo ilaahay inuu atbaacdiisii iyo dadkii nabi maxamed raacay ilaahay inuu kaa dhigay waxa wax tarayana waa inaad nabiga raacdo laakiin inaad maalinta u dhashay aan ku farxay kaligeed waxba tari maayo laakiin aayad buu dabageliyay suuratu yuusuf ku jirta waaba u sheegaba waaba ogolahabad waxaan ba kaba soo qaadan iri xataa sidiisa haddaan raaco oo in lagu farxo la yiraa nabiga maalinta u dhashay aan ku farxa haddaad tiraa macnaheedu waxay tahay nabigii maalintaas dhashay in ilaahay uu ka mid dhigay dadkii qaatay diintoo la yimid laakiin haddaadan ahayn dadkii raacay waxba tari mee wax macnaana sameyn waxaa kuu soo hartay dowladda sacuudiga uu yidhi waxaan ka xumahay markii aayad la waayey waa soo socdaa ibnu kathiir fiiri sacuudiga waa ibnu kathiir albidaaya wanihaaya uga hadlaa wax qarsoonna maahan sideedana waxaa fiican annagu dad la hadli mayno indhoolayaala dadaan wax aqrin dad wax yaqaana la hadlina kutubtii meeshay taal telefishinka universalna waxaan codsanaa haddii waxaan sheegnay wax ka soo noqda in nala soo celiyo dadka xukumaan marka ibnu kathiir meel dhow iyo meel dheer asaga iyo ibnu taymiya waxay ku jireen ragga safka hore oon ogolayn waxaan marka taas sheekh maxamed cabdilwahaab waxaan ka xumahay walaalkay markii aayad la waayey oo xadiis la waayey oo war asxaabad la waayey oo warkii taabiciinta la waayey warku hadduu galo dowladda sacuudiga inay xafiisya xirato maxamed cabdiwahaab xaflad u dhigto aniga dowladda sacuudiga wakiil kama ahi hadday iska day madaxweynahana shariif sheekh xasan xataa ay u dhigaan xaflad antaa shaqadeeda ma taas shaqadii waxaan ka hadlayna aniga diin ee ka hadlimayn dowlad sacuudiya sheekh maxamed cabdiwahaab hadday ka hadlayn iyo haddaysa ka hadlayn iyo say uga hadlaan wax diinaan ka hadlayna annagu ee dowlada ka hadli mayno marka waxaan jeclaa lahay inaan joogno waxaan ilaahayaa yiri rasuulaa yiri asxaabaa tiri taabiciina culamada islaamkoolu marka dowladda sacuudiga daliil maaha waxay doontaa hadday iyada dhan u dhigto haddii kale waa inuu aqbalo dowladda sacuudiga waxay tiri oo dhan inuu aqbalay noqo oo ay kamid tahay culimadooda inay yidhahdeen mawlidka lama dhigi karo waa gartay baarak allahu fiikum labadiina khayr allah idin siiye khadka taleefankaan u gudbina qof ka horreeya asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum cabdi wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo walaal magaca walaal hooyo soomaaliyeed ayaan ahay waxaana kaa soo wacayaa magaalada london dooda waa la socotaa dooda si wanaagsan ayaan ula socdaa waana yani ku mahadsan tihiin tv-ga universal sida qiimaha badan le ah ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto yani aad ugu soo bandhigteen in siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la weyneeyo ninkii diidan asagaa diidan annaga waxaan nahay ummad muslim ah waxaanu kusoo dhalanay wadankii soomaaliya ilaa iyo dhalashadeena waxaan ahayn ummad yani weyneysa xuska mawlidka calayhi salaatu wasalaam waxaan kusoo barbaarnay maalinta 12 mawlid inaan yani aan ku dhafarno noogala sheekeeyo jacaylka iyo wanaaga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii diidan asagaa diidan 2006 anigoo wadankan UK joogo habeen anagoo yani telefishinkii STN la dhihi jiray ka dhagaysanayna qisada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee mawlidka ayaa gabdho noo soo galeen markaasay nacuudu billah naga damiye telefishinka maxay tahay waxaad dhagaysanaysaan waa dimbaawdin
istakfirullah aan dhahna ilaahay ka baqa yacni ninkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisii rabin oon dhegaysan karin albaabka ha iga baxo waa gartay bas gurigeygana iskale tvgaygana iskale waxaan dhahay banaanka ha u baxo ninkaan rabin weynaynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ayadiyoo taa jirta ayaa hadda waxaa socoto wadankii Soomaaliya aan shaahid ku soo dhaanay in rag culimo isku sheegayo aragooda markaad aragto sunnadina ka muuqato hooyo Soomaaliyeed raallo walaashay mar raba inaan Soomaaliya aado waxaan rabaa inaan joogo qaala Allah wa qaala rasuul Soomaaliya waxa ka jira haddaan halkan caawa bilowno berri dhamaan meeno warkaan waa cad yahay mawliidka hala dhigo dhaqankeeni weyn mawliidka hala dhigo in la weyneeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisana Allah baa raali ka ah intaan ogolayna allaha soo hadiyay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh qof kale ku xiga salaamu calaykum hello assalaamu calaykum cami TV-ga iska baktiyo calaykum asalaam waraxmatullahi soo dhawo magaca magacayga Cumar baa la yiraahdaa Cumar xagee dunida ka joogtaa caawa waxaan joogaa London waxaad la socotaa baan filayaa doodu say u la socotay aad baan la socdaa ahlan wa sahlan bilowgii waa la socotay si fiican waa gartay maxaa kaaga baxay aad leedahay maaragtay waa diin ama waa daliil ama soo waa ku qancay waxa weeye haddaad TV-ga iska baktiisay oo ku ducayn lahaa Cumarow waaye waxa weeye waxyaalo yaryar baan anigu ku darsanayaa dooda idinkoo mahadsan hay midda koowaad saddexdii nin oo sheekhu uu sheegay oo yidhi nabiga u yimaadeeno ninkii yidhi weligay waxba guursan maayo iyo kii yidhi habeenkii o dhan qiyaamuleyl baan u taagnaanaya iyo kii yidhi waa soomaya ha nebigu ma oran camalkiina joojiya waa xun yahay waxa la diidayay waxay ahayd ninna wuxuu yidhi weligay guursan mayo ninna wuxuu yidhi weligay waa soomanaanayaa maalintii oo dhan ninna wuxuu yidhi habeenkii oo dhan waa taagnaanaya ma garat laakiin waxaan u malaynayaa su-aasha camalka xadaafka baa la diidaya horta yuu u fasirin sheikhu in la diiday camalka wanaagsan in la sameeyo waa kow waa qodob cumar adigu israacso nebigu muxuu ugu diiday nimankaa inay saas sameeyaan baad leedahay camalka quluwiga oo xadaafintaa la diidaya ee camalkaa sheikhu wuxuu ileeyahay camalkaasaa la diidayay waa gartay maxaad intaa kale ku biirinaysaa waxaan kaloo ku biirinayaa waa kow taasi midda labaad waxa weeye waxaan la yaabaa salliga yarka oo nebiga nimanka diidaya haddii nebiga u yahay maxaa u yaraynaysaa Cumar sabiga yani saacadaha yaroo nebiga lagu saleeyay nimanka diidaya markay khudba akhriyayaan ama barnaamij jeedinayaan ama iskooladooda wax ka dhigayaanna nasiidka ku fura khudbadooda ama talooyinka ama meeshii ay istaagayaanba nasiid carbeed oo caruur carbeed qaadaysa ku fura laakiin nebiga saacadda yaroo lagu saliyayo diidaya waa qodob labaad waxa weeye Cumar waxaan jeclaa labada qodob inaan ku siiyo waqtiga ugu yar dad fara badan khadka ku jira waa mahadsan tahay thank you Cumar waa mahadsan tahay qof kale aan siiyo dabadna culamadan ku soo celinaya qofka xiga assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo cami magaca waxaa kula hadlaya sheekh maxamed cabbaas glasgow aan kasoo hadlaa Scotland waa galta sheekh maxamed cabbaas soo dhawo aad iyo aad horta kugu mahad celinaa caawa barnaamijkan aad keenteen laakiin waxaan aad ugu xumahay waqtiga iyo barnaamijka oon islahayn maxaa dhacay mawduuca laga hadlaayana mawduuc oo fara dheer waaye laakiin se haddana waxaad u malaysaa waqtiga inuusan dabooleynin tobankii barkii baan bilownay cami waan la socdaa maasha allah tabaaraka allah haddii aan ka faa'iidaysto waqtiga aad isiinaysaan iyo fursada cabdixafiid anoo mashaayikhda meesha kula fadhida salaamaya waxaan aad ugu xumahay sheekh Ismaan inuu dhaho maanta oo dhan aayad iyo xadiis iyo wax daliil aan maqlay ma lahan maxaa dhacay sheekh Axmed Fanax aad iyo aad wuxuu ugu dadaalay wixii adilla ah dhan inuu sheego بينما شاق وحاس ودن ولا قلي وين هذه آية القرآن كلا سوقاتي والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى مال والقرآن كمركو فرحكم ممنوعي إن الله لا يحب الفرحين وليه ماشي كلية إلهي سبحانه وتعالى وكل هاي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا علماء دان مفسرين تاعها كل جودة بل أن ادعونا يا أنا الديار وأنا لصفر الشيخ عثمان وقتي أصدق الرضا هدي ادعاها سلقها لو حقلدن
ay kulligooda ku wada tilmaamayaan raxmada nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay oo ilaahay subxaana watacaala uuna amrayo inaan ku farxno oo annagana aan ugu farxayna si saxaabadiisa calayhi salaatu wasalaam ay ugu farxeen maalintii madiina uu galay haddii laga soo taagan yahay oo laga soo taagan yahay asxaabtii rasuulka inay la tagaan mawlidkii sheekh cabaas caaisha sheekh cabaas khayr allah ku siiyo aayadda aad daliishatay sida ay maaragtay culummada markay ka hadlayeen ay sina isugu khilaafeen sina isugu waafaqeen haddii aayaddu ay tahay ha lagu farxo islaamka ama nebiga ha lagu farxo sala allahu alay wasalam mawlidkii aayaddu xaggee iska soo galaan adigu fariistaan ay ka tadaakuraan axwaasha ambiyada xadiiskii tirmidi kolleyba waa taqaanaa oo nabiga sheekh cabaas fadlan aan ismaqalno aayadda iyo mawlidka xaggee iska soo galaan in loo dabaaldego adiga meesha fadhidaa waktiga sheekh abubakar hadduu xusay alcabaas ibn cabdilmuطalib mawlid oo qasaa'ida uu bixiyo o dhahay wa anta lama wulidta ashraqat alardu wadaa'at binuurika alufuqu فنحن في ذلك النور وذاك الضياء سبل الرشاد نخترق وليه ان اي ادلذي ودن باي عدا علماء الاسلام كدن اي انتودا بدن كتبك الفين اي النبي عليه الصلاه والسلام كل جود امانتيسا اي اوغليين بل اي واركان شيء مستحب او قفك مسلم كا اعتقادكيسا او سنتوسين اسغونن النبي عليه الصلاه والسلام امانتيسا اي ان لغا هلين waxa cajiib kale haddii qofka caqliga leh uu isweydiiyo nicmada ilaahay subxaanahu watacaala kusoo minaysta bashariyada oo dhan nicmada saa la rabaa in loogu qaabilo ma sida gaalada oo kale oo ilaahay ka sheekeeyey ee dhahay sheekh cabaas baarak allahu fiika I think inaa waqti badan ku siiyey sheekh dhaqankii soomaalida soo jiraa bedelaysaan adila la hayaa waxba ma dhegaysanaysaan meesha talo kuma haysaan aayaddana khalad baad u fahantay tafadal runtii walaalihii soo hadloo dhan aadan ugu mahad celinaa maadaama waxa ka keenay inay soo hadlaan nabiga jacaylkiisa iyo weynayntiisa salawaatullaahi wasalaamu ay tahay aadan horta ugu faraxsanahay jacaylkaasna waxaan rajaynayaa inuu gaarsiiyo inay nabiga raacaan jeclaanta runta ah weynaynta runta oo nabiga la weyneeyo ama la jeclaadahu waa nabiga oo la raaco oo qofku uu noqdo qof nabiga raacayo nabiga waa weyneynayna salawaatullaahi wasalaamu calayhi qof bani aadana oo la weyneeya meesha ugu dambayda oo la weyneynayna laakiin waxaan weyneynaynaa xuduud ayadoo leh inta rabbi uu noo ogolaaday sida nabigu u yidhi oo kale tusaale ahaan sidii nebi ciise dadkiisu ay ugu talax tageen ha igu talax teginina xadiis saxiixu ku leeyahy la tadruuni kama xadiis macruufka marka nabigaan jecelahay iyo nabigaan weyneyna waa sax laakiin waa in cabirkii loogu talagal aada dhaafin haddaad cabirkii loogu talagal dhaafto waxay isku bedele waxa adigu sheeganayda laakiin nabigu uusan shaqo ku lahayn marka nabiga waa jecelnahay waana weyneynaynaa meesha ugu dambayda aan nafteenna iyo maalkeenna iyo xoolaheenna nabiga ka jecelna laakiin waxaan leenahay mawliidka intaan xoolo lagu khasaarin oon waqti lagu khasaarin diinta hala weydiiyo waxaan hadhowta in mushaar lagu helayo inaan lagu helin waa intaas kaliya ee nabi jacayl mushaar aakhiro in lagu helayo iyo in kale oo ajar laga helayo ha layska hobsada kaliya waa arrinteena ee maaha nabiga lama xusi karo lama weyney karo maaha ujeedadu taas waa mid waxaan kuu sheegaa nabiga waqti yaroo lagu sallinayay diidayaan iyo waqti xaflad loo dhigayo annagu waxaan rabnaa every second in qofku nabiga raaco nabiga lagu saliyo wadadiisii la raaco qof nabiga wadadiisii hayo qofku noqdo ee uusan noqon nabi 12 rabiicul awwal sanad ka sanad nabi loo soo noqdo oo maalin xaflada oo cayiman loo sameeyo taasan diidayna qofku maalin walba nabiga ku saliyo hal mar hadad nabiga ku salido 10 goor lagu salina marka waxaan leenahay aayadaha quraanka ah markii la waayay hal shay oo mawlid sheegay ayaa waxa culimada qaar isku dayeen dadkii jecelaystay mawlidka la dhacay ayaa waxa isku dayeen dhowr xadiis ama dhowr aayadood in la qor qabto oo loo leexiyo mawlidka tusaalan qul bi fadlillahi wa bi rahmati waxaan niri nabigu raxmada u ahay wax dooduna kama taagna inuu nabigu raxmad ahay aayada in la fasirayo mufassiriintan uga dambeynayna nabigu naxariiso ahay waa run waa ku soo wada ibn Abbas iyo jumhuurul mufassiriin waxay leeyihiin islaamka ku fasirayaan laakiin qowl oo xaaladiisa aysan cadeyn ayaa la nabiga naxariis ku fasira waa run nabigu naxariiso ahaa laakiin yaa yiri nabigu naxariiso ahay waxa laga wada mawlid yaa cadeeyay tusaale ahaan aniga waa dhihi karaa qul huwallahu ahad ilaahay yiri ayad quraan ma tahay soo ilaahay ma dhihin universal tv aniga lagu wareejiyay waa dhihi karaa ilaahay yiri qul huwallahu ahad hadda qul huwallahu ahad waa run laakiin inta iska soo gashay isma geeyaan
halala aado qul bifadlillahi wabiraxmatihi maxaa kuu diiday meesha runta ah oo aakhiro lagu baxsayo oo ah inaad nebiga raacdo inaad aad xaggaas la aado maxaa kuu diiday marka adigu mawlid sanad ka sanada oo nimanka iyo dumarku isku darsan yihiin hadday rabaan oo qasaa'id meelay ku taal iyo meel diintu ka waafaqsanta aysan jirin la akhraayo oo nebi hal sana lasoo xasuusayo sida maalinta hooyada oo kale sida gaalada war nebiga annagu every second hala xusan lena every second hala raaco arrintuna maahan nebi loo soo noqaayo dhowr saacadood oo sanadkii dhowrkaa saacadoodna munkar iyo baadil iyo waxaan islaamka iyo ilaahay ogoleyn looga buuxiyo sheekh inaad adigu siiyaan rabaa annagoo waqtigu aad uu ciriir noogu yahay inta aanan ku siinin mawliidka rag iyo dumar baa isku dhex jira macsi weeye ilaahay raalli kama ahan qasiidooyinka qaadaan nama qurux badna iyo aayaddii qur-aanka ahayd maxaa ka leedahay bismillahi raxmaan raxiim horta mawliidka marka la dhigaayo ikhtilaadu rijaal wannisaa horta kama dhaco xataa hadduu wadaadku u arkay meel rag iyo dumar isku dhex jiraan ragga iyo dumarka un baa laleeyahay kala baxa mooyaane mas'aladu ma aha mas'ale laleeyahay waa xaaraam wadaadku inuu taa horta fahmaa horta la rabaa midda kale caawo o dhan waxaan ku celcelinaynaa wadaadka waa leenahay qul bifadlillahi wa biraxmatihi wuxuu leeyahay wa biraxmatihi waxaa lagu fasiray culimadoo dhan islaamkaa lagu fasira qur'aan lagu fasiraa ugu horeeya tafaasiirta qur-aanka wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmadaas inaan ku faraxnana waa wax ma'muur oo nala amray diinta islaamkeeda macnaha halkaas oo ku sinaadaa iskale mar rabaan kaaga ka dhex galo raxmad inuu yahay la iskuma haysto mawliid in loo dhigo la dhaho raxmaddu waa mawliidka maalinta iyo bisha hal la xuso ayuu sheekhu diidan yahay hadda adiladii aan usoo sheegaya caawo o dhan oo xadiidkii abi qataada uu ka mid yahay ibn alxajar alcasqalaani uu ka mid yahay macnaha tabiib alxadiis uu ka mid yahay sheekhiisii ibnu taymiya ibnu taymiya uu ka mid yahay uu yidhi annagu ibnu taymiya ma raacayno quful baan ku dhejinaynaa waa wax cajiib oo aad loola yaabo waay gobolkoodna marka aragtid waxay ku leeyihiin annagu culimadii mufasiriinta iyo muxadisiintii waxay ka soo reebaan culimadooda keliya inay itibaacaan raac aniguna waxaan u tusinayey bal wadaadku inuu wax ila fahmo meesha maaha dood af soomaaliya keliya inaan ka dhigno inuu ila fahmo ibnu taymiya oo macnaha inuu mawliidka qabo wuu ka jawaabi waaye maxamed ibnu cabdilwahaab in loo dhigo cusbuucu sheekh waa ka jawaabi waaye meelo kale iyo derbici cilduhu macnaha iyo macnaha buu macnaha qardajeexu macnaha mara waxyaalahaas oo dhan macnaha waxay caddaynayaan qofku inuusan xaqdoon ahayn qofku hadduu xaqdoon yahay waa wax loo baahan yahay shayga wanaagsan xaqa inuu qaato xadiidku soo qaatay laa tadruduni kama atarat nasaara ciisa bni maryam xadiidka macnaha loola jeedo kulligeen waa wada garanaynaa nebi ciise waxay ku sheegeen qoomkii loo soo diray nebigu inuu yahay nebi ciise inuu ilaah yahay inuu yahay wiilkii ilaahay inuu yahay inuu yahay saddex ilaah macnaha mid ka mida ma lahayaa caalamulislaam qof yidhi nebi maxamed baa ilaahaya mawliidka annagaa dhigna nebigu waxaan u aaminsannahay huwa cabdullaahi warasuuluhu inuu yahay ilaahay baan caabudnaa alqaa'il fi lqur'aanihi almajiid wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinni iyo insi midna uma abuurin ilaa inay macnaha i caabudaan macnaha mooyaan marka saasaa macnaha loola jeedaa waana gebagabeynaya hadalkayga muslimiinta waxaan u sheegaynaa dhammaan adduunka dacaladiisa macnaha naga daawanaya ammaantii rasuulku uu marka hore igu waafaqay haddana waa ka noqda hal daqiiqaan codsanaya ninka riyaad cabdulxafiidow 30 second baan codsanaya maadaama walaalkeen uu nagu waafaqay ammaanta rasuulku inay bannaan tahay markii hore dalaca albadru calayna soo qasiido mashhuura soo maaha oo nebiga lagu soo dhaweeyey bal laba beydoo ka mid aan ku sawdeynaynaa walaalkeen hanala qaado hadduu ammaanta nebiga aaminsan yahay sala allahu alay wasalam ya nabi salaam calayka ya rasuul salaam calayka ya xabiib salaam calayka salawaatullah calayka طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعٍ أيها المبعوث فينا كل أمر مطاع جئت شرفت مدينة مرحبا يا خير داعي بارك الله فيك شيخ أحمد الكاس عليك على نوات إن شاء الله تعالى شيخ عثمان مرة الشيخ أحمد نقصنا وقت النيوز كان عاي فضلا 40 seconds بارك الله فيك إلهي وحلو مهدننا دينتنا إن إلهي مهد إلهي إن وحا أن آمن سنة دينتنا إلهي وكدغي قال الله قال الرسول لكن قصائد إيو حتروين
aan ilaahay diin nooga dhigin horta taas waa mahad ilaahay walaalkeen soo u fiicnaa caawo dhan ayuu wuxuu kusoo dhammaystiray arrintii xumaan iyo aflagaado oo xaqdoon inaan ahayn iyo wuxuu ugu tilmaamay ilaahay ayaa yaqaan qofka xaqdoonka inta wax garatana waxaan aaminsanahay inay arkeen waxa xaqa iyo waxa aan ahayn xadiidkii ugu dambeeyey oo uu fasiray oo nabigu uu yiri macnaa ha igu talax teginin oo ku xadgudbinina aniga ammaanteeda sida nabi ciise la sameeyey nabi ciise waxyaabaha loo sameeyey waxaa kamid ah maalintii uu dhashay maalin lagu sheego ayaa waxaa loo dhigaa xaflad la yiraa Christmas marka waxaan walaalkay aan jeclaalahay sida uu ogolaaday in arintaas hore aysan banaaneen inuu taasna yeelo walaalkay waxaan iyo walaalaha kale oo asaga lamidka mawlidka aaminsanna runtii waan u ducaynaa oo waxaan la ilaahay xaqa ha garansiiyo waxaanan aaminsanahay dad xun inaysan ahayn dad naga go'an maahan waa dadkeenni waan u baahannahay waxaan weliba warka kusoo khatimaa nin aan mawlidka aqoon anigu maahi waxaa maskiinnimo ah walaalkeen waxaa laga yaabaa asoon mawlidka bilaabin inaan anagu ku jirnay oon dadka u dhigi jirnay laakiin ilaahay mahadiis waxaa ah waxaan rajaynaa sidii ilaahay xaqa noo fahamsiiyo inuu asna u fahamsiiyo diinta markii aad loo sii galo marka waxaan aan u mahad celinaa intii mawlidka aaminsaneed aan aaminsanayn in la dhigo xafladda loo dhigo inta kalena waxaan leeyahay idinkuna waa mahadsantihiin xaqana ilaahay ha idinku toosiyo wasalaamu calaykum labadiinu halka ii jooga hal telefon baan qaadaya dabadna soo afmeerina asalaamu calaykum qofka ugu dambeeya عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحنا أم ماهر هذا أبو فرح سنة أنا تليفون كي قاعدي waxaan rabaa sheekh axmed inaan weydiiyo horta nabigu calayhi salaatu wa salaam jecelnahay laakiin sida walaalahan sheegeen ba ani waxaan aaminsanahay in aan lagu koobi karin farxadda iyo qiimeynta nabiga hal maalin waxaan rabaa sheekh axmed inaan weydiiyo hadduu digriga wax saxayaa maxaa xaramka ilaahay oo lagu xajiyo oo lagu cumreeyo looga hadrayn waayo looga digrin waayo waa mahadsantihiin waa gartay aad baa u mahadsan tahay nasiib daro sheekh axmed waqtiga ay diiday su-aasha kama qaadi karo waxaan jeclahay inaan isgacan qaadan saddexdeeno ilaahay dembi dhaafna siiyo insha allahu tacaala wajazakum allahu khayr baarak allahu fiikum labadiina insha allahu taala khayr allah idin siiyo dembigiina allah dhaaf waa hagaag farsamadu waa cali naaji cabdirashiid rashka iyo weliba maxamed saciid asaxaaf oo qeyb weyn nagala qaatay masaajidka qubo iyo maamulkiisa oo qaarkood badan halkan joogan ayaan u mahad celinaya sheekh axmed weli waxaa kaloo jooga sheekh cali loo bogay stuudiyaha nala jooga iyo sheekh cusmaan iyo labadoo sheekh baa u mahad celinaya insha allahu tacaala waxaan jeclahay in wax ilaahay loogu dhowaado ay ka soo baxaan insha allahu tacaala oo aanu nabigeennii ku dayano iyo diinteenni iyo rasuulkeenni aysan noqonin maaragtay mid lagu kala fogaado ummadda soomaalida in isku dhowaadaan barnaamijkan iyo kuwo kaloo la mid ah ayaanu idiin soo wadnaa mahad celin gaara maxamed xaaji cagmadhiga oo qeyb weyn ka qaatay iyo axmed daahir oo asagu farsamada guud noo haya caawi insha allahu tacaala mar walbana noo haya waa mahadsantihiin sheekh cusmaan usuuli oo ii suurtageli weydana khadka telefoonka kusoo xiro waa ka cudur daaranayaa barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac isla mar ahaantaana idiin soo saaray intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono taqwada ilahay